السلام عليكم كسو دوادا Walaalaha fitness waxaan ahay coach Moe Beast maanta waxaan rabaa inaan Walaalahay aan soo bandhigo barnaamij yar oo ay ka faa'iideystaan dadkii maarta murqaha ku cusub ama gymka ku cusub saddex workout oo kala duwan ayaan sameyn doonaa oo xabadka laga sameynayo xabadka muruq oo muhiim waaye ragga iyo dumarkaba especially ragga maarta markay xabadka shaqeeyaan jirkooda uu isku haystaa wuuna qurux badan yahay kusoo dhawaada marka barnaamijka kan waan idin soo bandhigayaa insha Allah assalaamu calaykum so saidin sheegayba workout ugu horeeya oo xabadka ama shafka maanta kala shaqeynayo mashiinka kan waay hammer strength waxa la dhahaa isolator incline so mashiinkan muhiim waay marka waliba gymka ku cusub tahay ama workout ka uu yahay maaragtay maalinta in lagu bilaabo si maaragtay marka lagu sameeyo warm up xabadkii loo kululeeyo dhiig maaragtay loo galiyo muscle-kii laga shaqeynayo marka mashiin fiican waay qof walbana uu ku bilaabi karo beginner advanced qof walba marka muhiimadda waxa waay mashiinka marka sameynaysid marka hore sidka in la adjust gareeyo waay marka waa imaanaysaa waa soo dhawaanaysaa saana leedahay kursiga waxa dhigaysaa meel kul eg oo adiga marka fariisatid xabadkaaga uu mashiinkan uu la simanayo markaad kursigii samaysatid uu adiga ku leeyahay positionkaagi waa imaanaysaa waa fariisanaysaa and then ka bacdi halka kan elbowgaaga tartiibaad u celinaysaa elbowgaaga make sure maarta lugahaaga your feet is on the ground your elbows are tucked in and then waxaa samaynaysaa marka you just push it forward hor loo riixaysaa Right. Total frame sameeyay a workout ka kan ah. Okay. Marka dambe waxaan tusayaa workout ka ku xiga mar dhow insha Allah. Okay. So sayidin sheegay exercise ka labaad or second exercise amaanta sameynayno waxa la dhahaa bench press. Bench press waa king of the chest waa boqorkii xabadka waa lagu dhisi lahaa wuu fiican yahay waa great exercise for xabadka ama shafka qofkii soo raba inuu development ku sameeyo uu soo saaro ama xabad ama shaf maarta murqa oo ka buuxa uu sameeyo marka hadda waxaan sameynaynaa waxa idin tusayaa sida formka ama correct formka markii la sameynayo bench presska marka hadda waxa kamida marka hore your feet should be on the ground both feet ska maartay should be on the ground and also maartay xagaaga dambe ama maartay inay also benchi ku fadhidid waay haddana waxa idin tusayaa maartay sidii maartay benchiga marka seexatid loo qaadi lahaa so jeedin lugahayga dhulka yaalaan I'm just picking up the bar from here you want to put your pinky around maartay sheeg birta halka kan labada gees maartay meeshaas markas ayaa saaraysaa waa qabanaysaa gacantii waa xiraysaa and then you just gonna lift it up from the rack bring it down nice and easy that's one rep hal rep right Okay. Saidin sheegay exercise ka saddexaad or the third exercise we'll be doing for chest maanta waxa la dhahaa incline smith machine waa machine fiican waaye oo marka ka shaqeynaysa xabadka ay isticmaali kartid qof walba isticmaali kara in lagu support gareeyo uma baahnidaad because birta hadii aad sameynaysid oo aad ku daashid ama if you get tired you just put it back and hooga marka so you don't need a support necessarily so it's a good exercise or especially for upper chest development qof walba waan ku encourage gareyn lahaa inuu sameeyo muhiimadda waxa waaye
marka hore first you need to adjust the seat as just any other machine before you start lifting weight-ka. Marka haddeer I'm just gonna go ahead and adjust the seat-ka. Seat-kan samaynayaa. Hadda ujeedin angle-kan wuu taagan yahay. Looks like almost 90 degree. But waxaan samaynayaa hoosaan dhigayaa. I'm just gonna bring it down to there. Maybe 1 hour. Just to get that, degree down. And then one frisanaya. So I'm gonna be seated. And then I'm just gonna, after that, waxaan samaynayaa le birtii la korka u qaadaa. Halkan aan ka qabanayaa. I still be using those little hash marks as all the time. And then I'm just gonna unlock barka. Waan loo gareynayaa. And then tartiib xabadkaan ku soo riixayaa. Xabadka tartiib soo riixayaa. Waa celinayaa. Xabadka u soo riixayaa. Waa celinayaa. Okay. Workout kan, okay, idin sheegay. Smith machine, incline, bench press. So if you haven't tried it, it's a good exercise to try next time in your workout. So idin sheegay, exercise ka ugu dambeeya, last exercise keena maanta, waxaa la dhahaa Pec Deck machine. Machine waaye oo xabadka looga shaqeyn karo oo muhiima. So machine-ka kan ayaan samaynayaa. Sida aan ugu soo gabagabeeyo our last workout for the day. Just like any previous workout machine-ada, make sure in all adjustment ay ku samaysid meesha tan. Hadda siduu u yaalo waxaa loogu talagalay in laga shaqeeyo rear delts, laakiin waan soo wadayaa. I'm just gonna move it up here. Waxaan gelinayaa meesha saddexaad camal, hogga saddexaad ayaan gelinayaa. Same thing with meesha tan, soo wad. Godka saddexaad ayaa saas u gelinaysaa. Already weight-kii waan adjust gareey, weight aan qaadi karo aan ka adkahay ayaa ii yaala. Hadda marka waan fariisanayaa. My feet is on the ground as always. Halkan aan ka soo bilaabayaa. Labada dhinacan aan ka qabanayaa. And then waan isku soo keenayaa. And then I'm just going to squeeze in the middle. I'm trying to get that feeling in your chest-igaaga. If you are not getting pump or not feeling your chest, then try to adjust the seat until you get the proper form down. Good workout, good exercise why. So I didn't share. So this is gonna be our last final workout for Jooga. Saddex machine ayaa idin tusay sida idin sheegay. So muhiimadda waxa waaye sidii aan idin sheegay aniga maanta waxaan ka soo qaadayaa qof gymka ku cusub. Inkastoo aan ku jiray dhowr iyo 10 sano maanta qof gymka cusub aan ka soo qaadayaa maalintii ugu horeysay waaye. So haddii maanta gymka ugu horeysay mashiinada hadda sameeyay ayaan samayn lahaa just to get the most out of my workout as a beginner. Crank it up. Should I put my headphones on since I'm not going to be... Oh, all right. So Mohammed, that was it. Thanks for watching video. So dhawaada again mar labaad. Walaalaha fitness waxaan ahay walaalkiin coach Moe Beast. Maanta xabadkan sameynay was just today. Isniin waa Monday, so typically
Mondays I do chest day. So I show you guys all maaragtay 4 different exercises. And Simei haddana I'm just gonna do maaragtay rope down to cool off, before I go home and call it a day. Again, if you guys like the workouts, share with someone that you think may benefit from it. Comment, like, and subscribe channel kana. Kusoo dhawaada. As you guys see, I'm tired, I'm sweating, so I'm just gonna go ahead and take a shower. So let's get it done. Again, thanks and welcome to Walaalaha Fitness.